ku soo dhawow qaybta afraad ee qisadii jacaylkiisa Kaylow. Qaybtii saddexaad waxay ku dhammaatay in uu ii soo qortay warqad misna aanan weli furan. Qaybtan insha Allah waxay kasii bilaaban doontaa halkaas daawasho wanaagsan. aan ku xasuusiyo tabiyaha qisada waa anigoo ah Nimcaan Ilkaase. fadlan haddaad ku cusub tahay YouTube channel-keena subscribe noo saar gambaleel kala furo si ay kugu soo dhacdo qayb walba oo qisada ka mid ah. haddii aad jeclaysatay inaad dhiirigelisana qaybta faallada ee hoose noogu reeb. sidoo kale ha hilmaamin inaad muuqaalka like garayso. intaan warqadii soo qabtay ayaan sariirteeda la dul tegay oo aan furay si aan u aqriyo waxaanu qornay sida tan: qaaligeygii xamsow, waxaan hawada u dhaxaysa guriga habeedle aad ku nooshahay iyo kanay cidlada igu daashatay aan kuu soo marinayaa salaan qof bini'aadam ah loo diratay ugu qiimo badnayd, salaan aan rumaysanahay inay furo u noqon doonto farxad ay hesho nolosheeda, salaan xambaarsan wanaag idilkiis, salaan kaaga timid qalbi habeen qura ku fikirin inuu ku xumeeyo, salaan kaaga socota qalbi jecel mar ay ahaataba in maalin uu nolosha kugu helo, salaan kuu rajo weynahay inay mugdiga iyo cidlada daashatay nolosheeda ay iftiin iyo wehel bedeli doonto, salaan aan isleeyahay waxay isku soo dhoweyn doontaa qalbiyadeenna. salaan kadib qaaligeygii xamsow, farxad iyo nolol macaan baan kuu rajeynaya. waxaan u malaynayaa inay la yaab kugu noqon doonto hanoo warqad caynkana iyo erayo caynkaana kuu soo qoraysa, laakiin taas waqti ha iskaga luminin, inay wax walba waa la fishaa. qaaligeygii xamsow, ka bilow hanaqaadkayga ilaa maantadan waxaan dareemayay in nolosheeda wax ka dhiman yihiin, inaan wehel u baahanahay. waxaan dareemay qofka keliya ee qalbigayga ku weyn, qofka keliya aan siiya qadarinta ugu badan ee aan bixiyo, qofka keliya ee markaan arko ka cabsado indhahana aan u dhammayn karin, qofka keliya ay dhagahaygu jecel yihiin inay ku raaxaystaan inay magaciisa maqlaan, qofka keliya aan dareemay inuu yahay qofka nolosheeda ay u baahan tahay, qofka keliya aan isleeyahay waa kan ku kaafin kara, qofkaasna waa adiga. qaaligeygii xamsow, waxaa tahay farxaddii noloshayda, dawadii naftayda, maqalkii dhagahayga iyo aragga indhahayga. waxaan adkaystaba qalbigaygu dambeyn wuxuu igu dhaqaaq oo raadi farxaddaada. sidaas ayaan u go'aansaday inaan warqadda kuu soo diro. xamsa, waan ku jeclay maxaane, waxaan rabaa inaad guushii nolosheeda ii iftiimiso oo aad qalbiga ii furto si aan u dhex dego. macaanahaygiyow, waxaan kaa sugayaa jawaabaan ku farxo. waan ku kalsoonahay inaad ii dhaga nuglaan doonto. jaaw macaane, fiiro gaara ogow noloshaydu inay kugu xihan tahay, ifka noloshu waa adi ka socota qalbi kuu ooman. Hani Xasan. markii aan akhristay ereyadii ku qornaa warqadda aan jiifka ka soo fadhiistay anigoo neeftooraya, waxay runtii noqotay arrin aan la yaabo, marmarna arrin aan ku qoslo. waa tan koowaade, waxaan la yaabay sida ay gabadha aftahan u tahay iyo ereyada macaan ee ay warqadda ku soo qortay. saas bayba qalbiyada u dilaacin kartaa isna lahayn. tan labaadna waan ku qoslay qofkii kibirkii baas qabtay ee markaan arkaba wejiga dhinac u wareejin jiray oo maanta rab aadaan ku jeclahay. nacba arax baan fakeray, waxyaabo badanna waan isweydiiyey. runtii arrin fajacaah bay igu noqotay. waxaa igu adkaatay xaloolidda waxa aan ka yeeli lahaa gabadha. dhinacyo badan ayaan wax ka fiiriyey. gabadha mar adeerkay baa dhalay, mar waannu isla shaqaynaa. haddana waa gabar kibir badan. aniga dabci ahaan dadka caynkaas ah kama helo. waxbayaana hadalkuugu daarinne fikir iyo wadatashi aniga iyo nafteeda. kadib ayaan go'aan ku gaaray inaan bal jawaab u diro. waxaana sir bal markaad saragtaan afka uga sheeg. haddana way ila xumaatay. si kastaba waxay ila noqotay inaan waraq ahaan u qoro jawaabta. markaas baan inta bannaanka u baxay. dukaankii ii dhowaa bashqadii warqad ka soo qaatay. kadibna waxaan u holladay inaan jawaabtii u qoro. waxayna u qorrayd sida tan: diir hani, marka hore waxaan hawada kuu soo marinayaa salaan walaalnimo iyo mid saaxiibtinimo tan ugu qaalisan. salaan kadib, xaalkayga waa dhag, kaagana sida ayay si ka wanaagsan baan filayaa inuu yahay. salaan kadib waxa ay soo gaartay warqadda, waana akhriyey. waad ku mahadsantahay runtii xiriirkaad la soo samaysay iyo sida aad ugu dhiiratay inaad bannaanka soo dhigto wixii qalbigaaga ku jiray. waan dareemi karaa qofkuu jacayl galay aysan arrimihiisu fududayn. waana ogahay in waxaa keliya qalbiga caynkaasi kaafin kara inuu yahay waxa uu haminayo inuu helo. ani ahaan ma jeclayn inaan qalbiga holcaya ku sii shubo shidaal, laakiin mararka qaar xaaladaha ayaa ku qasbaya inaad samayso waxaadan jeclaysan lahayn adiga xataa haddii laguu sameeyo. si kastaba waxaan aad uga xumaa in waqtiga la joogo aanan rumayn karin riyooyinka qalbigaaga, igamana ahan xumaan iyo inaan ku niyad dilo. marxaladda ayaa sidaa tiri. waxaan aad uga xumaay inaan aqbali karin codsigaaga islamarkaana aanan waxba ka qaban karin dhibka jacayl ee adiga ku haya. dulqaada maalmaha yar ee xasuusta ee qalbigaaga gubayso, kadibna adaaba iska kiilaawi doona. ani waxaan si gaara kaaga codsanayaa oo aan jeclaan lahaa in waayitaankayga aadan noloshaada u ciqaabin. isku day inaad adkaysato. haddaad aniga iseegtay macnaheeda ma ahan inaad nolosha ugu guuldaraysatay. marka noloshaada dib ha u horseedin, ana kalifintaas waa iga codsi. waxaan kuu rajaynayaa nasiib wacan iyo wiil aniga iga wanaagsan oo riyaayinkooga kuu rumeeya. waana ku kalsoonahay inaad heli doonto. by from walaalka Xamse Xaaji. markaan warqadda qoray ayaan habeenkaasi ku seexday. subaxii markaan shaqada tegay ayaan isragnay hani, iyadoo igaga horraysay xarunta shaqada. markii aan dhaayaha ka qaaday ayay dhankayga u soo socotay iyadoo ay dhahaysa: wax wanaagsan qaaligeygii xamsow, wanaagsan oo wacan. intaan ugu hadalgaabiyey yaanu sii raaciyay gees noo bixi. markaasay intay gacantayga qabatay ayay jiday dhinaca xafiiska. markaan xafiiska galnay ayaan ku eri: hani,
hadal badan kama gaaro warqadan hoo waana kaasii tegayaa intay dhoola caddaysa iyadoo aad mooddo inay farxad dheeri ah ka muuqato ayay igu tiri mahadsanid qaaligaygiyow. intaa waxay noogu eg qaybta afraad ee qisadii jacayl kaylow. insha allah qaybta shanaadna halkan ayay kasii bilaaban doontaa. fadlan haddaad ku cusub tahay youtube channelkeena subscribe saar, sidoo kale like noo saar, waayo dhiirigelin ayay noo tahay. wixii faallay iyo wixii commenti aan hoosta noogu reeb waad mahadsan tahay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. daawasho wacan.